Israa'iil maanta waxay gantaale ku garaacday gudaha dalka Lubnaan. Ujeedadu waxay ku sheegeen inay tahay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan oo maalmihii ugu dambeeyay jeedinaya hanjabaado kala duwan oo Israa'iil ku wajahan oo ah haddii la bartilmaameedsado hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan inaysan gacmaha laaban doonin oo dagaalka ay ku soo biiri doonaan. waxay maanta Israa'iil ay duqeysay gobolada dhaca dhanka koonfureed oo dalka Lubnaan ah waxaana ay digniin u direen xisbiga oo waxay yiraahdeen tallaabo ma soo qaadi kartaan haddii aad isku dhaqaaqdaanna annaga ayaa idin dul joogna oo idin bartilmaameedsanayna weliba ma soo faragelin kartaan dagaalka ka dhanka dowladda Iiraan halkiina ma soo dhaafi karaysaan. waxa wararka soo baxaya ay sheegayaan marka in maraakiibta dhanka badda ku sugan ee Israa'iil ay gantaale ay ku garaaceen deegaanada dhaca dhanka koonfureed waxaana ay sheegeen tan iyo xalay inay bartilmaameedsanayeen xarumo ay tuhmayaan in ay guutada Radwan la yiraahdo ay ku sugan yihiin. waa guutada dhanka militariga oo si weyn ay isu arkeen ciidamada Israa'iil maalmihii dagaalka uu ka socday xadka Lubnaan iyo Israa'iil. waana guutada la rumaysan yahay in jilbaha ay u aasteen ciidamadii Israa'iil ee taangiyada watay ee dhinaca xadka ku sugnaa. waxay sheegeen marka inay xarumaha ku yaala dhanka koonfureed oo guutadaasi ay leedahay inay bartilmaameedsadeen. fariinta ka dambaysa xitaa haddii sheekada ay dhabtaan waad fahmi kartaa waa cabsida laga qabo dhanka dhulka inuu weerar Israa'iil kaga yimaado. iyagoo sidaas oo kala ka baqaya weerar dhanka dhulka ayay ciidankii ugu badnaa waxay geeyeen dhinaca Masar iyo sidoo kale dhinaca Jordan oo waxay yiraahdeen sheekada haddii ay ballaarato dhinaca kale ay wax walba u weecan karayaan. muuqaalo kale ayay soo bandhigeen maalintii shalay oo mas'uuliyiin xisbiga ka tirsan ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen gudaha dalka Lubnaan. maanta maxaa dhacay? Iiraan diyaaradihii ugu badnaa oo daroonisa ayay ku weerartay gudaha Israa'iil. waxaad moodaa istiraatiijiyadda kala beddelka weerarka Iiraan inay ka muuqanayaan muuqaalada ka imaanaya gudaha Israa'iil. haddii shalay la bartilmaameedsaday dhowr magaalo oo ay sheegeen gantaal halkii mar 20 madax yeelanaya in lagu soo tuuray oo dhowr magaalo gantaalkaasi uu ku dhacay, maantana Iiraan waxaad moodaa jihadii inay wadashay oo waqooyiga iyo deegaanada dhinaca xadka ee Lubnaan iyo sidoo kale Syria inay bartilmaameedsadeen. markii ugu horeysay buuraha Joolaan ayaa laga maqlay dhawaaqa seeriga digniinta. waxaa xigtay in Israa'iil ay sheegtay in diyaarad drone halkaas ay ku soo rideen. waxaa xigay in magaalo ama deegaan istiraatiiji ah oo Beit Shemesh la yiraahdo oo ku yaala dhinaca oo dhaca deegaanada saddex xagalka ah ee Jordan, Syria iyo sidoo kale Israa'iil in diyaarad drone ay ku dhacday qasaaraan la diiwaan geliyay. sidoo kale in ka badan 10 diyaaradood oo drones oo Iiraan maanta ay ku weerartay gobolka Naqab ama Negev ayaa la arkayay goobihii ay ku dhaceen iyo uura cirka isku shareertay. waana bedelida jihada ay mar walba Iiraaniyiinta weerarka ay ku qaadi karaan. diyaaradahanina waa kuwo inta badan la hagi karo. warbaahinta Israa'iil waxay baahisay marka in qaar kamid ah diyaaradahaasi ay ku dhaceen qaar kamid ah goobihii bartilmaameedka ahaa. muuqaalada la soo bandhigayna waxay muujinayaan deegaanka Kibbutz la yiraahdo oo dhaca koonfurta dhulka Falastiiniyiinta xoogga lagu haysto kana tirsan gobolka Naqab in diyaarad drone ay ku dhacday sidoo kalena uura ay cirka isku shareertay. waxaa muuqata marka kobaca iyo kor u kaca xiisadda waxaa si gaar ahaaneed ay maalmahan u muuqanayaan dhinacyadu inay diiradda saarayaan in la bartilmaameedsado xarumaha nuclearka. Israa'iil maanta waxay sheegtay marka inay beegsadeen 3 xubnood oo kamid ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. mid kamid ah waxaa lagu sheegay inuu ahaa ninka qaabilsanaa in hubka iyo maaliyadda la gaarsiiyo dhinaca iyo xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta oo ka dagaalamaya magaalada Gaza. waxaana la sheegay door weyn inuu ku lahaa abaabulka iyo hubeynta xoogagga hubeysan ee weerarka ku qaaday 7 Oktoobar gudaha Israa'iil. labada kalena waxay sheegeen inay kamid ahaayeen saynisyahanada ugu muhiimsan dowladda Iiraan. waxaana la yiri waxaa lagu bartilmaameedsaday gurigooda iyadoo loo adeegsaday diyaarad drone ah. maalmihii ugu dambeeyana Iiraan waxaad moodaa in ay xoogga ay saartay ka hortagidda goobaha ee diyaaradaha drone lagu diyaariyo iyo goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha basaasiinta ah. haddaba iyadoo xaaladdu sidaa ay tahay oo dhinaca kale wax walba ay u weecanayaan dagaalkuna u muuqanayo inuu yahay mid isdaaris ah oo labada dhinacba ay isgaadgaada isku hayaan ayaa Iiraan waxay doonaysaa in ay ka faa'iideysato hoos u dhaca ama gabaabsiga nidaamyada difaaca ee Israa'iil waana mid keenaysa mar walba inay dhowr gantaal iyo dhowr diyaaradood ay soo diraan si Israa'iil gantaalada ay kaga dhamaadaan. sidaas si lamid ah Israa'iiliyiintu waxay ka shaqeynayaan in la bartilmaameedsado xarumaha muhiimka ah iyada oo nidaamyada difaaca ee hubka iyo goobaha laga soo tuuro gantaalada balastiga ay bartilmaameed ay ka dhigteen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil. haddaba xaaladdu maadaama sidaas ay tahay miyaan dhihi karaynaa labada qorshe ay diyaarinayaan Israa'iil iyo Mareykanka waa qorshayaal halis ku ah dowladda Iiraan. waxaan ku hormaraynaa tan dowladda Mareykanka oo ah sababta madaxweyne Trump uu toddobaadii u qabsaday si xiisadda loo qaboojiyo. kadibna waxaan raacin doonaa qorshaha Israa'iil.
haddii aan eegno warbixin uu warbaahinta uu siiyey taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee dowladda maraykanka sidoo kalena ahaa taliyihii taliska dhexe ee dowladda maraykanka ee Centicom loo yaqaano ayaa waxuu daaha uu kaga qaaday macluumaad ku saabsan sababta madaxweyne Trump ku qasabtay in uu dib u dhigo weerar lagu qaado xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. wuxuu shaacu ka qaaday kow madaxweynuhu in uu doonayo in qaar ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka uu xaqiijiyo inay soo gaareen biyaha Mediterranean-ka iyadoo markabkii saddexaad la sheegay inuu ku soo wajahan yahay biyaha Mediterranean-ka. waa maxay marka ujeedada ka dambaysa in maraakiibta Mareykanka halkaasi ay timaado in madaxweyne Trump uu dib ugu dhigo go'aankiisa? waxa wararka soo baxay ay sheegayaan Trump inuu doonayo halkaasi marka ay maraakiibtiisa yimaadaan diyaaradihiisa dagaalka ee ku qalabaysan noocyada kala duwan ee gantaalada iyo hubka casriga ah in ay halkaasi ay ka galaan difaacaasi oo ah in dowladda Iran aysan xirin marinka loo yaqaano Hormuz. marinkaasi waa mid istiraatiiji ah oo dowladda Iran u ah hubka koowaad oo ilaa iminka aysan isticmaalin maxaa yeelay halkaasi waxaa kaga sugan ciidan aad u badan oo dhanka badda ah. sidoo kalena waxay 2018 iyo 2019 ama marar badan ay ku goodiyeen marinkaasi inay xiri doonaan. haddii marinkaasi uu xirmo caalamka dhinaca kale ayuu isu rogi doonaa dhanka maciishada shidaalka iyo sidoo kale cunadaba maxaa yeelay halkaasi waxaa kasoo gudba 30 ilaa 20% shidaalka dareeraha ee dunida laga isticmaalo. marka Mareykanka waxa uu doonayaa in maraakiibtiisa marka halkaasi uu ku soo daabulo ay awood u yeeshaan in Iran marnaba aysan xirin marinka loo yaqaano Hormuz. halkaas oo Ismaaciil Khorsi iyo saraakiil sarsaro ka tirsan dowladda Iran ay ku hanjabeen inay xiri doonaan. maxay tani markaa Mareykanka ay u iibin kartaa? waxay u iibin kartaa cadaadis xoogan oo dhanka militariga ah oo la saaro dowladda Iran. maxaa yeelay laba cadaadis ayuu madaxweyne Trump isticmaalaa, waa kan warbaahinta ee hadallada adag iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa oo ah dhanka militariga. sidaa daraadeed marka arrintan dowladda Mareykanka miyay u iibin kartaa in Iran ay ka tanaasulsho xiritaanka marinka Hormuz xitaa haddii la bartilmaameedsado xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran? Iran waxay ku hanjabtay xarumahaasi haddii la bartilmaameedsado 4 awoodood inay isticmaali doonto xiritaanka marinka Hormuz oo dhibaato dhaqaale oo weyn ku noqon doona dowlado badan oo caalamka ah oo reer galbeedka ay ugu horeeyaan. maxaa yeelay waxay ku qasbanaan doonaan inay Ruushka oo hadda ay dhinaca kale iska geynayaan ay soo dhaweystaan shidaalkiisana ay isticmaalaan. waa tan labaad waxay sheegeen inay isticmaali doonaan saaxiibada gobolka ama dagaal wakaaladeedka xubnaha u ah ee Hezbollah kuwa ku sugan Ciraaq oo xashdu shacab ah, Yemen iyo sidoo kale saaxiibadeeda gobolka. waxay kaloo sheegeen inay adeegsan karayaan awoodda kale ee ah saaxiibada hadda dhahaya waan idin taageeraynaa waana idin garab taaganahay tallaabo kasta oo la qaado oo ah kuwa hubka nuclear-ka haysta. maxaa yeelay sheekada dhinaca kale ayay u weecan doontaa. waxaana Putin uu ka digayaa in albaabka uu ku tilmaamay inuu yahay midka jaxiimada bariga dhexe inaan la isku furin. dhinaca Ciraaq markaan eegnana xalay dhaqdhaqaaq xooggan ayaa soconaya sidaan barnaamijkeennii hore idin kula wadaagay. Mareykankana ilaa 4 diyaaradood ayuu geeyay gudaha dalka Ciraaq halkaas oo ka daabulay xubnaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq. waa maxay qorshaha labaad? qorshaha labaad waxaa la sheegay in uu yahay mid ay Israa'iil ay fulinayso iyadoo ka hormarinayso qorshe kale. waxay doonayaan inay marka hore ay daaliyaan oo ay baabi'iyaan nidaamyada difaaca iyo goobaha gantaalada laga soo tuuro taasi oo keenaysa niyajab ay saraakiisha ciidanka ah Iran ay qaadi karaan. kadibna waxay doonayaan sida wargeysadooda iyo warbaahintooda ay daabacayso in cutubka 11aad oo ah cutub commandosa oo si gaar ah u tababaran ay ku daadiyaan xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran ugu yaraana ay si hoose ay u galaan. waana aragtida Netanyahu uu qaba xaruntaasi iyada oo aan Mareykanka loo baahan inay iyaga burburin karaan. laakiin caqabado waaweyn ayaa hortaagan. Iiraaniyiinta dhankooda waxay dejinayaan istiraatiijiyad kale oo ah in ay diblomaasiyadana kaga horeeyaan Mareykanka iyo Israa'iil dhinaca kalena ay gantaaladooda ay wadaan taas oo dib u dhigaysa ama niyajab ku ridaysa Israa'iil keenaysa burbur dhaqaale mid hantiyadeed iyo sidoo kale barakac baasan oo ay sameynayaan Israa'iiliyiinta sida warbaahinada laga arkayay saacadihii la soo dhaafay. dagaalku waxaad moodaa marka inuu dhinaca kale u weecday. haddii labada dhinac ay si toos ah isu galaan yaa adkaan karaya adigoo ku qiimeynaya dhulka, ciidanka, hantida iyo garab istaaga ama taageerada ay cid walba ay heli karto. marka dhinaca kale aad eegto marka dowladihii kale ee caalamka waxaad moodaa inay aad kaga careysan yihiin go'aanada Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka iyo sii socoshada dagaalka. Turkiga oo kale maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran ayaa yimid waxaana madaxweyne Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ay ka dhawaajiyeen hadal u eg waa in wax laga qabtaa Israa'iiliyiinta si lamid ah hadaladii madaxweyne Vladimir Putin uu adeegsanayay. suuragal ma tahay marka arrintan inay abuurto isbahaysi kale in badan oo awoodda reer galbeedka ay ku baasaneed caalamkana aad moodo waqtigan in la gaaray dhamaadkiisa.
maxaa yeelay Iiraan, Shiinaha iyo Raashka waxay ka midaysan yihiin hal aragti oo ah reer galbeedka inuusan awood dheeraada kusii haysan ama uusan ku maamuli karaynin caalamka intiisa kale, oo awoodiisa softiga iyo midda adagba aan loo hogaansami karin. Soft power waa in dhanka waxbarashada, dhaqanka iyo diinta laga galo. Hard power ama awoodda adagna waa in si military ah lagu soo dhex galo. Adigu maxay kula tahay? Arrimahaas oo idil ayaa isku qasan waqti xaadirkaana taagan. Jihada kale ee dagaalku inoo bixiyana waan arki doonaa. Aragtidaada qaybta hoose ku reeb like-san muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada. Waad mahadsantahay. Nabadgelyo, amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.